القمر المضاء جيت شرفت المدينة مرحبا يا خير الداعي الله يا نبي سلام عليك الله يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك deegaanka la foole ee duleedka magaalada Muqdisho waxaa lagu dhigay xafladda meherka mudane Cabdiraxmaan Xaaji Nuur Cali iyo Marwo Samiiro Macalin Cabdiraxmaan Baalbaale meherkan ayaa waxa uu kamid ahaa kuwii ugu qaalisanaa ee ka dhaca magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaana ka soo qayb galay mashaayikh iyo macallimiinta subaxleyda ah ee aanka ka ah gudaha magaalada Muqdisho macallimiinta munaasabadan goobjooga ahayd ayaa waxaana kamid ahaa macallim Cali Sheekh Ibraahim iyo sidoo kale macallin Yuusuf Cali Naxar iyo macallimiin kale kadibna waxaa xigay sidii caadada ahayd dalbasho iyo dhiibis ugu dambeyntiina meherkii ayaa dhacay Sheekh Cali Sheekh Ibraahim ayaana mehriyay iyadoona dhammaanba ka soo qaybgalayaashu ay qoyska cusub ugu duceeyeen wadajir barako iyo awlaad baariyaal ahay maanta waxaan soo gogol galnay ciidayni weyneed oo duubkayni ahaayeen haddana abgaal meel laga taabto meel ka koreyso madax wuxuu yiri meel ka koreyso oo la taabto ma jirto yiraahin markii waxa waaye abgaal cid u weyneedaan gogasho ugu jirnaa maanta anagoo ka socono lama cunugo dhinac iswaafaqeen oo halna macalinkeena baariga oo dhalay macallin Cabdiraxmaan macallin Baalbaale loo yaqaano iyo waxa halka kalena waaba arag idin sheegno halkan daba joogno waa Cabdiraxmaan Xaaji Nuur Cali markii gabadhaas dhinac Samiiro ay Cabdiraxmaan is aragooda intaan isugu timid waxaan rabnaa insha Allah taala qaraabadii iyo ehelkii inta ka soo qayb gashay oo isuumaadkooda loogu jeeray ani ajiibeen kulli waa mahadsanyihiin leenahay mahadka bacdi haddaan ka soo gudbo sidii ahaa jirtay socodka aan socono waa socod horteyn soo jiray nogala horeey jiray haddana inta naga dambeysana ay sii wadi doonto maxaa yeelay laba qofood oo iswaafaqaan ay isu heshiiyeen waxa dalabka yahay in macluumka warka yahay in gabarta ehelkeeda laga dalbado loo tago loo ergay doonto haddii laga soo helo iyo haddii laga soo waayo horta ila doonto ay darajo ku leedahay gabar marka maanta waxaan nahay dad doonisa waxaan rabnaa gabartaas dhinaxoo Samiiro Macalin Cabdiraxmaan ayaa gogash u soo galnay waxaan ka rabnaa ciidayna qaraabadayna ehelkeena waxaan ka doonaynaa Yaaqub iyo Barow maanta la kala reebi maayo saddexda Yaaqub iyo Barow waxaan u maleeyahay inay isu badan yihiin andale waxaan ka rabnaa arwaaq xasan ma la yiraahdo gabadha macalinka dhalay macalinka cid kuma koobno waxa weeye waa macallin farqadiisa dheer tahay oo abgaal u kala socnayn waa qayr Allah siiyo gabadhaasaan rabnaa Samiiro macallin haddii Ilaahay yiraahdo waxaan rabnaa in haddii Ilaahay yiraahdo dalabkeena la ongolaado gudoonisaan nahay haddii Ilaahay yiraahdo Cabdiraxmaan Xaaji Nuur Cali Cumar maxaan raagaa la yiraahdaa waxaan rabnaa in dalabkaas nagala ongolaado gabadhaasna la siiyo waxa la yiraahdaa dhalinyarada xoogaa dhaqaaqda dhaliya waxa nikaaxa lagu soo dhaweeyaa la yiraahdaa marka nikaaxa waa wax aad u fal badan dadka xididamo koowaay marka la leeyahay nikaaxa laga wado dadka dir idaarood yahay way isku keenaysaa gabar maanta ilaaha mahad iska leh anagu waxaan isku nahay abgaal ismaan dad meel kala jira ma nihin dad haddii la isu tiriyo maanta isku soo dhacayaan nahay waxaan rabnaa gabadhaas in la siiyo dalabkeena la ongolaado maanta waxaan u soconnay wax mashruuca oo la arki jiray oo hortayna la soo sameeyay waxa soo ah nikaax khiyaartu waxay yiraahdeen nikaax muciinun lid-diin aalayri diinka loo kaalmeystaa waa sunna mashruuca oo jirta waay haddana jirayso marka khiyaartayna tulweyna abgaal gaar ahaan Abubakar Gaabane waxaan ka codsanaynaa gabartaas Samiiro Macalin Baalbaale in la siiyo sidaas aan soo gogol galnay waqtiga iska gabagaba awgeys intaasaan ku simaa assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh intaas kadib waxaan u maleynaa walaalku raqaaliya meel dheer ka yimiday safar ku yimiday safarkaas waxaan loo soo aado waa in qoyskaas abuurtaankiisa aan u midoobaynaa una isuguna nimiday waxaan u maleynaa akhyaar oo wees tilmaameen annagana ayagaabana tilmaamay inaan nahay heer Tulweyne oo nahay gobti ayagaaba tilmaamay haddana gob gabar laga jiraayo si qurux badan ee beriga waxaad moodaa inay u soo camireen nabadoon qaali oo saaxiibkayaan waa fadhiyo Xuseen Xoogyari an shaqooyin badan naga dhaxayso marka dhammaan qaabkaasaan
u soo dhaweeyaha walaalka intaasaan warkii anigu aan isaga xakamaya insha Allah hadii alla yiraa anigu waxaana cidda ninka u yaray laakiin haddaan Cabdullaahi hadla aniguna aan hadla gorbinta kale ku qanci doonto marka gabartu iyadaan anigu gabarta hoos meelo idaa isdhiibta intaan idaa isukan iyadoo gabar oo adiga maaragtay aan wali aan aad u weynaanin hadayba inay isdhiibtay ay garatay ay gogashaan dadka ku wacday anaguna waa dhiibnay walaalahayna waa ku wareejinay وبالله توفيق وبدل ما شاء الله الله اللهنا نوض السيو اللهنا سكين عفيو المها سنمتك اسكبها الله كدغ امين وصل كلام وصح غير الله اوكيانو نبت قلي عادلنا الله نو كيانو امين عنق تاسع عنق قاسينا خير الله سيواني وانا فسحن ماذا هي اخيارتها هي دليرada iyo gabdhaha haweenka iyo kulli biriga cid heer islaawa oo meesha maarata biriga gabar nagu siiyeen si sharaf lana nagu siiyeen maarata hadii ilaahay ku roon yahay sameelo macallin Cabdiraxmaan na siiyeen waa ku mahadsan yihiin waana ka sugeynay waana ka filaynay waa maarata wuxuu yiri nin waxa laga filahay aadna kuma inay akhyaarta yiraahin waa ku mahadsan yihiin reer adogeyn annagana mugga waxa noogu dhiman inay gabarti nagu mehriyaan hadii ilaahay ku roon yahay adduunyo aakhirana kulligeen kaamil Allah nooga dhigo nikaaxi oo la yiri marka akhyaartu codsadeen insha Allah waxaan rabaa ano intaan afkeera ku hadlaaya in nikaaxaas aan wada fasaxno ila fasaxdeen gabadha qaraabada ahalka dhammaan inta ka soo qayb gashay insha Allah waana fasaxeen waa aniguna waa intaasan ku soo koobay wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh zawajtuka Samira معلم عبد الرحمن بتوكيل وليها إياي ومهرها $200 حالا في ذمتك فلها المطالبة منك متى شاءت قبلت نكاحها وتزويجها بهذا المهر المذكور سمير معلم عبد الرحمن مهر كيدو $200 أيان بهذا تلسار شديسة مهر كيدو $200 شنت وقت شاركي كويديسة أي كولادها أيان بهذا وكالة ديسة صحيحة كولا نكاحيي سمير معلم عبد الرحمن مختار علي نكاحنتيدي وأقبلي مهر كان $200 aan ku aqbalay markii uu soo dhamaaday meherka kadib ayaana waxa macallimiinta subaxleyda ah ee munaasabada goobjooga ahayd ku subciyaan qaar kamid ah quraanka kariimka ah iyada oo loo niyeystay معلم عبد الرحمن يا مرودي سميرة معلم عبد الرحمن بالبالي إردستيه قيس كان عصبة والتوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن والذين يموتون وقالوا أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحلكم نساء كرها ولا تعقلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان
وكاشف الكروب سيدنا محمد مرحبا جاد الحسين مرحبا الله مرحبا يا نور العين زبنا مرحبا يا خير داعي مرحبا جاد الحسين مرحبا الله سيدي أنا الفقير سيدي أنا الحقير مرحبا جاد الحسين مرحبا ugu dambeyntiina arooska iyo aroosadda ayaa loo soo galbiyay magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya gaar ahaan degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir.